please inta videoga alaale inta videoga daawanayso halooge videogan Kamal Abdul iyo Asad Xaajiyo halaga gaarsiyo sida ay u arkaan muddo isbuuc ka yar igu soo jawaabaan ayaa rajayna insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asxaabta ku xiran barteena YouTube-ka ee Real You ku soo dhawaada maqaal cusub. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar soo hadii aad horno joogtiin waxaan ku leeyahay fadlan hal mid samee share samee asxaabtada la wadaag si muuqaalkani intaas oo qof uu gaaro. Okay, aad u maasan tahay hadii habeenku tahay wanaagsan hadii maalinku tahay maalin wanaagsan waxay idin tahay wanaagsan waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkani caafimaad ku daawanayso. Okay, kadib markii aan ka soo gudubnay intaas muuqaalkii hore aad aragteen in dib u soo laabtayna waad aragteen oo aan soo dhigay maanta insha Allah muuqaalkan bari ee daawan doontaan laakiin maanta maanta oo khamiis ah maanta oo arbaca yes maanta arbaca muuqaalka aan soo dhigay inuu xogaa xaafad marka la joogo waxa ayaamaha kaaga qadamay marka maanta oo arbaca muuqaalkii aan soo dhigay kiisi kale waxaad arki doontaan berito insha Allah xilligan aan duubay laakiin waa arbaco khamiis aad arki doontaan muuqaalkii waad aragteen inaan dib u soo laabtay oo aan update u soo laabtay marka guys waxaan rabaa in aad YouTube-ka kala kacsan oo aad meel gaarsiisaan insha Allah anigana inta ayaan sii joogi doonaa oo maalin walba waxyaabo cusub oo arki doontaan. Okay, caawa muuqaal hees reaction kan bixinay laakiin waxaan u soo fadhiistay in aan ka hadlo arrin yar oo gorolasheena haysato. Waxaan rabaa in aad ilaahay dartiis aad walaashin oo inka yar oo Soomaaliyeed ayaan ahay marka YouTube-ka wallahi muddo sanada ayaa ku jira sidaas ay tahana wallahi wiligeena qof caawinad ma weydiisanin laakiin just waxaan go'aansaday in aan laba wiil oo YouTuber walaalahayga Kamal Abdul iyo Asad Xaajiyo ayaa rabaa in ay videogan waxaan rabaa in videogan loo geeyo ay soo caawiyaan sida ayaga iyaga soo raacaan bulsho badan iyo dad badan asxaab badan maasha Allah ayaa ku xiran waxaan rabaa in asxaabtoodaas in qaarkood xataa waxa waaday ka soo raacaan waxa waa dhiirigelin ay ku tahay maanta dad badan ay kugu soo xirmaan waxa waaye dadaal iguma yaro waayo maalin kasta waxaan soo geliyaa video ayaan soo geliyaa had saastay tahana markii aysan dad badan oo daawasho aadan helaynin YouTube waxa waaye waa ka niyajabaysaa marka hadii ay haysato dad badan oo ku dhiirigeliyo oo markastana video kasta aad soo dhigtid garabkaaga taagan oo ku daawanayo waxa waaye waxay ku noqonaysaa dhiirigelin ay ku noqonaysaa adigana kama daaleysid in aad maalin kasta aad video aad soo gelisid wallahi runtii horta YouTube-kan xoog iyo dagaal iyo rajac waxaas uu u baahan yahay maahan ninkii masaakiinimo ku soo gala qortu uu istaagaya. Okay, because gowdan waxay tiri muuqaalkeedan daawad aniga laakiin mar muuqaalkeedan soo qaato wax yaraan ka soo qaadan doona laakiin gabadhaas muuqaalkeeda inaan ka hadlayo rabaa waxay tiri hal sana YouTube ku jira ilaa hadda meeshii aan rabay kama gaaro. Okay, qofka waxa waaye meesha oo inuu heer ka gaaro rabo waad ogtihiin meeshani hadii aad rabtid inaad horumar ka gaartid qodobo badan ay leedahay. aniga hadda kula hadlayo inkastoo aniga aanan sanad ku jirin wax ka yar aan ku jiro wax ka yar 5 bilood mise 6 bilood 6 bilood aan ku jiro wallahi horta 6 bilood inta fadhiya muraad fadhiya laakiin 6 bilood ka hor sanad iyo bar ayaan ku shaqeynay kaamiradan hadda isticmaalay oo aan asxaab wax ugu duubay waan ogahay rafaadka uu leeyahay YouTube-ka iyo orodka iyo booqa iyo khaylada uu leeyahay waan la socdaa wax walba waan ka dhagsanahay laakiin gabadhani waa gabar markii aan la hadlay oo aan si toos telefoon ula hadlay waxay tiri waxa waaye hooyan ahay caruuraan leeyahay laakiin badanaa gurigan joogaa waxaan isku mashquuliyo ma hayo walaa runtii horta aniga aad ugu nahay because aniga naftikeyga aniga oo hadda asxaab aan haysanin ayaa ka nahay because aniga rag ayaan nahay oo hadda rab bari waxa aan raba samaysan karaa asxaaban raadsan karaa team aan samaysan karaa waxaan way kala kacaya laakiin ayadu waxa waaye hooyo guri joogto waa ilmay u joogaan waxay u baahan tahay in loo kala macnaha YouTube-keeda daawasho fiican oo hesho asxaab fiican ay hesho commentiyo qurux badan waxaan lahayn muuqaalkii ay soo dhigta iyadoo in ka walwalayn share aan dhihin asxaabta ay u daawadaan oo asxaab update ah ay hesho runtii wallahi markaan muuqaalkeeda daawaday aad iyo aad ayaan u xumaaday because dadka ay la hadlayso waa laba qof aad iyo aad caan ah runtii horta aniga Kamal aqoon sasa uma lihi laakiin waxaan rajaynayaa muuqaalkaas inaan soo u share garan doono mar hoos ka dambeysay muuqaalkii ugu dambeeyay
uguna horreeyay aan la sameeyo wuxuu ahaa muuqaalkii prankiga ahaa iyo midkii kale laakiin insha allah kana waan u sheegalan doonaa hadduu iga soo jawaabo iyo haddii kalaba inkastoo hadda uu xaasla noqday oo iska mashquulay ilaaha u barakeeyo asadna isma naqaano laakiin gabadha waxay tiri labadaas laga gaarsiiyo aniga xaggayga insha allah kamaal waan u sheegalan doonaa oo haddii uu intuu arka uu iga soo jawaabana oo adigana kaga soo jawaabo waa khayr laakiin ani xaggayga insha allah horta badanaa wallahi muuqaalada waan daawadaa waa gabar aad iyo aad waa iga fududahay haddii leedahay muuqaal samaysi muuqaal hagaajin dhaqsi waxaad soo gelisaa maalintana update waa ayada inkastoo waxyaaba qaar ay jiraan laakiin anigaas mar kale ka hadli doonaa mar kale maaha laakiin muuqaalkan qaybta dambe uga hadli doona oo tala ayada ku socda laakiin inta ka horeysa asxaabta waxaan rabaa inaad gabadhaasi aad raacdaan youtube-keyga aad tagtaan kadibna aad subscribe u saartaan haddii share aad dhigi kartaan share aad dadaan waayo shareka wax weyn maaha subscribe-ka wax weyn maaha maanta aniga kuma dhahay ani ii share garay mise aniga because muuqaalkani waxaan rabaa inaan ayada uga hadlo waa muuqaal macnaha aan ayada u sameynayo waa wax i taabtay oo ayada i taabtay oo xaggeeda because markii ay tiri hooyaan ahay markaan la hadlay waxaan ku mashquula u baahanahay iskaga mashquulo youtube-in hamiyanka leeyahay waxaan rabaa inaan heer sare ka gaaro wallahi aada uga xumaaday because aniga maanta haddii aan awood leeyahay wallahi awood oo maanta aan asxaab kusoo jiido ma hayo hadda saacadaan taagan yahay isku waddan lama joogno waddanka Kenya joogta aniga maxaa Soomaaliya aan joogaa laakiin haddii isku meel joogi lahayn aniga muuqaalo la sameyn lahaa oo youtube-ka at least براnkii waxyar la sameyn lahaa si muuqaalkeeda youtube-keeda loo daawado waayo Soomaalidu waa ognahay saan haddii usoo fadhiisto maalin walba cid daawanaysa malaha laakiin haddii challenge reaction qurux badan aan sameeyo waa la daawanaya marka gabadhaasna waxaa waaye waa walaasheen hala caawiyo insha allah ugu dambeyn muuqaalkan kusoo gabagabeynaya waxaan rabaa ayada inaan hal tala siiyo gabadhaas waan ogahay markay hadlaysay hami ay lahayd iyo xoogay u hadlaysay waan la socdaa oo ana xaggayga waxa waaye waa gabar aniga aan arkay oo gabadhan awood ay leedahay macnaha hami ay leedahay rajo ay leedahay horaha u socota laakiin hal tala seeriya taladaas oo ah horta youtube-ka laba nooc baa laga sameeyaa lacagna waa laga sameeyaa magacna waa laga sameeyaa haddii adiga lacag iyo magac aad rabtid inaad isku samaysid hal mid samee muuqaalada tiktok-ka oo compilation-ka aan isku soo aruuriyey iska dhaaf waayo hadhow markii xilliga xayeysiinta la gaaro waa lagaa dili doonaa in lagu fasaxo xayeysiinta waayo muuqaaladaasi muuqaalo adiga aad leedahay maaha oo aad xaquuq u leedahay marka waxaad samaysaa muuqaalo adiga soo fadhiiso maalin walba soo fadhiiso update noqo waxyaaba cajiib ah soo samey kadib adiga waxa waaye horumar gaari doona insha allah muuqaalka marka intaasaan kusoo gabagabeynaya asxaabta intaa mid lamid ah kulmi doona waxaa idinkaga tagaya sidaas in nabadgelyo iyo muuqaalka xiga waxaa idin leeyahay waan soo laabtee idinkana هي معناها عجز يعني ذيك قادم وهدي مقالك على شركرين على لو داون عجز هكا قادم ساعة يوتيوب مرة بين يوتيوب عجز كقاضي مركو حربة إن يوتيوب كأدمال غير سيسان إن شاء الله أنت عمل لنا كل دون واحد كده تجي سلسلة كل يوم مقالك حلو